madaxweynaha Soomaaliya oo aqbalay go'aankii gudoonka golaha shacabka ay ku shaaciyeen in kalsoonida ay kala laabteen xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre. madaxweynaha Farmaajo oo sheegay in shaqadii xukuumadda uu egmaday inuu sii wado ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka. xasan cali Khayre oo dib ugu soo laabtay Muqdisho xilli maanta gudoonka golaha shacabka ay shaaciyeen kalsooni kala noqoshada xukuumaddiisa. madasha xisbiyada qaran oo kalsooni kala noqoshada xukuumadda ku tilmaamtay carqaladeyn iyo burburin ku aadan go'aanadii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka una badan wasiirada ra'iisul wasaare Khayre oo diiday kalsooni kala noqoshada xukuumadda. iyo xaas ilmo yar ku cunay degmada Afgooye kadib fatahaada webiga Shabeelle oo ku baahday xaafado kamid ah degmada Afgooye. iyo sirdoonka Ruushka oo ka digay faragelinta doorashada. warshada isbuunyada Shaakir taya iyo taabagal weeye. habeen wanaagsan waa Sabti 25-ka Juulaay sanadka 2020 u diyaar garooba faahfaahinta warkeena habeen. go'do waxaan eegi doonaa dib u soo laabashada ra'iisul wasaare waa xasan cali Khayre oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho iyo go'aanadii ka soo baxay ama qoraaladii ka soo baxay xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku aadan gudoonka golaha shacabka ku dhawaaqeen in maanta kalsoonida lagala laabtay xukuumadda xasan cali Khayre. hase yeeshee aanu ku hormarno sida ay maanta wax uga dhaceen golaha shacabka iyo shirka jaraa'id ee gudoomiyaha golaha shacabka uu qabtay iyo xildhibaano ka hor yimid. Rijaal Cabdi ayaa faahfaahinaya. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shir gudoominayay kulanka xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ku furmay 178 xildhibaan. kulanka markii uu bilowday isla markaana gudoonka baarlamaanka uu sheegay inuu furan yahay ayaa durba halkaasi waxaa ka bilowday buuq ay sameeyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo hogaaminayay wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo bedelay ajandihii loogu talagalay kulanka ayaa durbadiiba sheegay in kalsoonida lagala noqday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xasan cali Khayre. waxa uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan in ajandaha kulanku uu ahaa in maanta xildhibaanadu ay ka doodaan doorashooyinka dalka taa bedelkeedana maanta kalsoonida ay kala noqdeen xukuumadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xasan xukuumadda iyo sidoo kale ra'iisul wasaare xasan cali Khayre. 170 xildhibaan ayuu sheegay inay kalsoonida kala laabteen ra'iisul wasaaraha halka ay diideen 8 mudane inkastoo aysan muuqan cod la qaaday oo xildhibaanada golaha shacabka ay gacan u taagayeen maadaama goobtaasi uu buuq hareeyay. gudoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay xasan Khayre. baarlamaanka nafsidan ayuu codeeyay. waxaa ogol u codeeyay 170 xildhibaan. waxaa diiday 8 xildhibaan. wax ka aamusay malaha. sidaa daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad wadankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mooshinka maanta uu sheegay in kalsoonida lagala laabtay ra'iisul wasaare xasan cali Khayre waxa ku weelinayay kulankaas oo la gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muddi iyadoo maalmihii la soo dhaafan ay soo baxayeen warar ku saabsan in gudoonkaas ay aad uga soo horjeedeen wixii ka socday magaalada Dhuusamareeb. xildhibaano ka tirsan golaha wasiirada oo joogay fadhiga baarlamaanka ayaa guud ahaanba diiday kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyagoo ku tilmaamay go'aanka ra'iiska inay tahay mid gudoonka oo kaliya ay qaateen isla markaana aysan ahayn mid sharciga waafaqsan. marka hadda waxaa markhaati kaamirooyinka ay joogeen ee live la galay xukuumaddu waa dhacdo dhahay aan mooshin laga keenin oo dastuurka waafaqsaneen aan laga doodin oo xukuumadda marka la eedeeyay isdifaacin inuu gudoomiyaha maanta u aragtay aayadaha quraanka marka lagu furo hadalka ugu dan ku xigay waxay inuu yiraahdo xukuumaddu waa dhacday. marka taas waxaan ogsoonahay in ay qaran dumis u yahay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliyeed. waxaan dhihi lahaa inay u jeedaan waxaan anaga mar walba xukuumad ahaan aan leenahay aan sheegnay wasaarahana uu sheegay in doorashooyinka waqtigeeda ku dhacay sababtoo anaga wasiir amni ahaan xil ay ka saaran dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan
in doorashooyinka waqtigooda lagu qabto in doorashooyinka aan waqtiga loogu talagalay 8 February madaxweynaha la doorto waa dhici kartaa farsamo in wixii la doono farsamo waa la aadi karaa wixii technical ah dileed technical diima waag Sheekh Shariif oo yimaad madaxweynaha Sheekh Shariif xasan Sheekh labadu bixlabaan ahay waqtiga dib ay ku dhacdo waxba laga ma qabo laakiin 2 sano extension ala qaadaha marka waxaas aan ka dhiidhinay waxaan u shaqeynaa ummad Soomaaliyeed aan ahay anaga wasiirne uma jirnin laakiin waxaan rabnaa wixii xaq ummadana helaan dalkan waa inuu doorasho aadaa doorashadu waa taasaan laga shaqeynaa waqtiga loogu talagalay doorasho aadon haduu Ilaahay yiraahdo qofkii ku taamay inuu 2 sano ku darsado sida maanta xukuumadda ay ka dhiman tahay 3 bil 4 bil gudaheed xukuumadda la rido xukuumadda la soo dhisaa taas suurteed mid ku fikiraya waxaan leeyahay iimaanka Ilaahay ku bulsho ma dhacayso mana dhici doonto wasiirka amniga ee xukuumaddii maanta guddoonka golaha shacabka ay shaaciyeen in kalsoonida lagala laabtay ayuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aqbalay go'aankii xildhibaanada golaha shacabka ee kalsoonida ugala laabteen ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre kala fogaanshaha xukuumadda hay'adaha sharci dejinta waa hay'adda sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarka la sameeyay si taas loo daba qabtana waxaan go'aansanay inaan tixgelino codka golaha shacabka oo ah hay'ad aasaas u ah qarannimadeena madaxweyne Farmaajo wuxuu si degdeg ah u soo magacaabaya ra'iisul wasaare cusub kaas oo soo dhisa xukuumad dalka ka saarta marxaladda kala guurka ah sina xoojisa adeegyada bulsho ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu uga mahad celinayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre howlkarnimadii uu muujiyay muddadii uu xilka hayay iyo wada shaqayntii wanaagsaneed ee uu la lahaa hay'adaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isaga oo u rajeynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan ayaa lagu yiri saacado waa daqiiqada kadib markii uu soo baxay go'aanka guddoonka ay ku sheegeen inay kalsoonida kala laabteen xukuumaddii Xasan Cali Kheyre haddaba Xasan Cali Kheyre ayaa dib ugu soo laabtay galabta magaalada Muqdisho wuxuuna hadda ku sugan yahay xarunta Villa Soomaaliya ilaa iyo hadda ila ku dhow xafiiska xukuumadda ama xafiiska Xasan Cali Kheyre waxa ay sheegayaan in uu soconayo kulamo uu la leeyahay xubno kamid ah golahiisa wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kuwaas oo ka hor yimid kalsooni kala noqoshadii ay sheegeen guddoonka golaha shacabka isla markaana maanta buuqa ka sameynayay fadhigii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre wali saxaafadda lama hadlin mana cadeyn sida uu arko go'aanka guddoonka ka soo baxay hase yeeshee dhinaca kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya warqad uu soo saaray waxa uu ku sheegay in hawsha xukuumadda uu u egmaday in si ku meel gaar ah ay u sii hogaamiyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed wariyana Cali Xasan ayaa faahfaahinay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegtay madaxweyne ugu egmaday Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii xukuumadda federaalka Soomaaliya sii socodsiinta iyo maareynta howlaha golaha xukuumadda si ku meel gaar ah wareegtada madaxweynaha ayaa ku saleysan inuusan hakad gelin qorshayaasha dowlad dhisidda iyo horumarinta dalka tan iyo inta uu madaxweynaha uu kasoo magacaabayo ra'iisul wasaare soo dhisaya xukuumad tayo leh oo sii dardargelisa xaqiijinta yididiilada shacabka Soomaaliyeed laga bilaabo faafintan sida uu qabo dastuurka meel gaarka ah waxa uu ku simay ra'iisul wasaare Mahdi Maxamed Guuleed Qadar awood u yeelanayaa hagidda howlaha xukuumadda inta laga soo buuxinayo xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa adkeeyay in dalka ay ka dhacayso doorasho waqtigeeda ku qabsoonta oo lagu wada qanacsan yahay waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka iyo in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay ka shaqeynta qodobadii ku soo baxay warmurtiyeedkii Dhuusamareeb iyada oo shirka la xigay loo balansan yahay 15 Agosto 2020 wariyana Cali Xasan aad uu mahadsan yahay dhinaca kale madasha xisbiyada qaran qoraal ay soo saartay waxay uga hadleen xaaladda maanta ama xaaladihii siyaasadeed ee kacsanaa ee maanta ku aadanaa kalsooni kala noqoshada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay sheegeen in kalsoonida ay kala laabteen ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo xukuumaddiisa
ciwaan looga dhigay mowqifka madasha ee ku aadan kalsooni kala noqoshada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Madasha xisbiyada qaran waxa ay u taagan tahay ilaalinta sareynta sharciga iyo in si xasilooni ah looga gudbo xaaladan kala guurka ah ee dalka uu marayo. Madashu waxay u aragtaa kalsooni kala noqoshada xukuumadda jamhuuriyadda in ujeedadeedu ay ahayd carqaladeyn iyo burburin go'aankii shirka dhuusamareeb, isla markaana ay tahay mid loogu gogol xaarayo muddo kororsi aan sharci ahayn. Madasha xisbiyada qaran waxay ka xun tahay in xilligan uu waqtiga hay-adaha dastuuriga ah sii dhamaanayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya uu hormuud ka noqdo qalalaase siyaasadeed oo ay adag tahay maareynteeda. Madashu waxay ku baaqaysaa in la ilaaliyo isfahamka siyaasadeed ee bilowga ah lagana fogaado wax kasta oo keeni kara qalalaase siyaasadeed iyo in doorashadu waqtigeeda dib uga dhacdo oo aysan dhaafin muddo xileedka dastuuriga ah, noqotana mid taladeeda loo dhan yahay ama wadar ogol. Ugu dambeyn, madashu waxa ay ka digaysaa isku day kasta oo looga gol leeyahay muddo kororsi, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ee uu hogaamiyo Shariif Sheekh Axmed. wararka ku aadan arrimaha la xiriira warkii guddoonka golaha shacabka ee ku aadanaa kalsooni kala noqoshada xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo intaasdan uga soo laabano fatahaada uu sameeyay webiga Shabeelle gaar ahaan degmada Afgooye oo ku fiday xaafado badan oo kamid ah degmadaas waxay sababtay in xayawaanadii ku noolaa gudaha webiga ay banaanka u soo baxaan kuwaas oo waxyeello gaarsiinaya dadka. warbixin amuurtaas ka hadlaysa iyo xaas cunay gabar yar oo ka barakacaysay gurigeeda oo ku yaala degmada Afgooye waxaa inoo haya Maxamed Boota. noolo ayaa ku nool bariga si lamida badda iyo webiga, isla noolo kale ayaa ku nool degmada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga fatahaada webiga Shabeelle uu sameeyay. biyihii soo caaray waxay ku faafeen xaafadaha iyo wadooyinka. bahalihii soo raacay waxay dhib u geysanayaan dadka ku nool halka biyaha ay gaareen. hooyo lacag ay kala soo baxsato iyada iyo caruurteeda oo gaadiid ay ku soo raacdo weeyday ayaa waxay gashay safar fatahaada ay kaga barakacayso. hooyada oo la soo xiriirtay idaacadda Risaala ayaa waxay sheegaysaa in gabar 7 jir ah oo ay dhashay uu yaxaas ka cunay. biyaha ku dhex jirna markaan ka soo dhigi maagna waxaan cunay yaxaas cunugiga cunay 7 jir ah. shalay maana darra waxaan soo baxaynay daaqaa magaaladana isrinayna ku soo galna xamar arrinayna soo aadna garas balay dadkayga ila joogeen. marka waxaan isdhahay la soo bax dadkaaga soo gaar biyihi cunugiga dhex lugaysa 5 kuna dameer ugu raaco ku raaci waayo ma garatay. waa kaas 5 kuna casiya waayay sidaas waxaan isdhahay inaan baawr cunugi soo raaco oo baawr ku soo raaco soo baxaan rabay garas balay meel liidan istiimaado. waa kaas hooyo markaas ma Afgooye aad joogto Afgooye jooga dadka dameer soo raacay dadka biyaha iga soo baxsanay ilmahooda anay dameer raacaan ku soo baxsado waa waayay ku dhex lugeynayna biyaha ku dhex lugeynayna gudada ka soo baxna biyaha ku dhex lugeynayna 7 jir rafayle. fatahaada webiga uu sameeyay waxaa ku dumay guryo badan, waxaana magaalada dadka ka barakacay ee lacagta haysta waxay gaadiid ahaan u soo raacaan gaari dameero oo ka dhex shaqeynaya biyaha gudihiisa kuwaas oo kaga soo gudbaya halka dadka ceerta ah agtooda ayagoo maalaya biyaha ee ku dhex lugeynayaan. warwixii dal iyo dibad naga soo gaaray caawa naga intaa warkeenan cidda uu sheego waxay dib ugu heli karaan bartaan internetka ku leenahay ee ah radio risala.com.